goobaha dalxiiska oo ku soo badanaya magaalada Muqdisho goobo ay bilicdooda aad u soo jiidanaysa ayaan warbixintan ku eegi doonaa haddaba goobahaasi goobaha kamid ah runtii degmooyin badan oo kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa noqday goobo loo dalxiis tago degmadan haatan aad arkaysaan waa degmada Daynile ee ka tirsan gobolka Banaadir goobo badan oo dalxiis ah oo ishaada ay soo jiidanaysa isla markaasna ay u dalxiis tagaan bulshada qaybadeeda kala duwan xilliyada nasashada ama fasaxa ay ku jiraan maalmaha Khamiista iyo Jimcaha waxaa jaamac degmadaasi duleedkeeda oo ah goob aad weyn bilicdeeda ay u qurxoon tahay waxa ku taala dhir fara badan iyo goobo loo diyaariyay in dadweynuhu ay ku nastaan isla markaasna ay soo dalxiis tagaan degmada Kaxda ayaa kamid ah ayadana u dheeda iyo degmada Hiliwa sidoo kale tan degmooyin qaar ayaa jira oo ayagana loo dalxiis tago hayeeshee maalmaha fasaxa ay dadku u badan yihiin inay aadaan kuna soo nastaan jawiga degan ee goobahaasi ayaa ka saacidaya in maskaxdaada ay noqoto mid farxad ku dheehan tahay oo soo degta dadka qaar ayaa ka faa'iideysta in la doogsigaasi iyo quruxda jawiga degan oo kaliya aad maqlaysa dhawaqa shimbiraha ma maqlaysid buuq iyo sawaxan gaadiid ordaya oo magaaladu ay caan ku tahay meelo jaam ah oo maskaxdaadu ay noqonaysa mid ku wareerta goobahaasi goobahan ay ku soo nastaan oo ah bilaa juuqda ah oo haddana quruxdu ay ku dheehan tahay goobahaasi dad ayaa ka abuuray maqaahiya lagu cunteeyo isla markaasna aad ka hesho adeeg walba aad u baahan tahay kuguna keenaya fadhigaada xilli aad iska dhiibayso wax yar oo qadaadiica taasi ayaa noqonaysa soo jiidashada labaad ee loo tagayo goobahaasi maadaama laga helayo cuntooyin kala duwan cabitaano iyo waxyaalo naftaada iyo dhammaan asxaabta kula socoto ee goobahaasi kusoo jawigooda kusoo degsadaan ay ku isticmaalaan maadaama ruux bini'aadanka uu u baahan yahay waxyaalo uu ku kifaaxa sida cabitaano iyo raashin maalinkaasna saacadooyin badan ay ku soo qaadanayaan waxaa ku fadhiya halkan dad waaweyn oo mas'uuliyiin qaarkood ay ka mid yihiin goobtuna waa degmada Daynile duleedkeeda degmada Kaxda qudheeda waxaa ka jira goobo badan oo dalxiis ah oo dad badan ay tageen halkaasi waxaan rajaynaynaa in muuqaalo ay ka soo duubno haddii waqtigeena uu noqdo mid saacida iyo barnaamijyada aan wadno maadaama mashquulaad badan oo jiro qofkana uu leeyahay howlo badan oo aan ahayn hawsha kaliya ee YouTube-ka uu soo galo daqiiqadaha kooban ee wax uu soo gudbiyo taasi way ka xeleertahay fikradda qofka isla markaasna waxa uu leeyahay howlo u gooni ah iyo barnaamijyooyin badan oo asiga uu qabsado YouTube-ka haddii aan ka hadalnane waa aalad lagu soo gudbiyo muuqaalo isla markaasna dadku ay ku daawadaan muhiimadda koowaad intaasi ay dadku arkaan hayeeshee waa uu ka xeleeryahay bartan waxaa ku galay dukumeenti ah in waxyaalo fiican aad soo gudbisay waxyaalo xun dadka qaar ayaa soo gudbiyay barnaamijyooyin ka baxsan anshaxa isla markaasna ku caanbaxay dadkaasi oo ku caanbaxay inay soo gudbiyaan barnaamijyooyin ka baxsan gabi ahaanba anshaxa isla markaasna dukumeentiri ay noqon doonto feedback-gooda dambe ama raadraacooda dambe si ay dadweynaha ugu waan qaataan una arkaan waxyaalaha dadkaasi YouTube-ka dad ayaa u soo galay inay ka sameeyaan lacag iyo magac aniga maahan muhiimadeyda intaa oo idil hayeeshee waxay tahay inaan soo gudbiyo barnaamijka saxaafadda aan bartay barnaamijyooyin inaan ku soo gudbiyo isla markaasna aan la wadaago wixii macquul ah ummadda Soomaaliyeed dhammaan anigu aan cid jaayfaynin una gudbeynin shakhsi ahaan isla markaasna dadka u soo gudbinaya waxyaalo anfacaya oo aad u soo jiidasho leh barnaamijyada ku taxalluqa dhanka iyo arrimaha bulshada isla markaasna aan soo wareysto dadweynaha qaar ee aan u arkay inay yihiin kuwa muhiimad gaar u leh bulshada iskuna dayi doono tilaabooyin cajiib ah inaan qaado insha Allah waqtiga maahan in kaliya aad u hurto halkan YouTube-ka ah taasi wuu ka duwan yahay uuna ka xeleeryahay ma ka qaadanaysa daqiiqado kooban inaad barnaamij soo gudbiso oo kaliya barnaamijkeeni intaasi ayaan haatan ku soo gabagabayn doonaa in daqiiqadooyinka soo socda barnaamijyooyin kale aan ku soo gudbinay iyo adeegyo kale oo dheeri ah janalkan waa sida aad la socotaan magaciisa janalka lagu magacaabo Dooxa Media oo ah janal baaxad weyn kana howlgala magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya ka oo muddo dheer u taagnaa inuu soo gudbiyo barnaamijyooyin aad u xiiso badan oo bulshadu ay aad ugu riyaaqday waxaan leeyahay dhammaan YouTube-deyda Soomaaliyeed qaasatan kuwa aad u yaryar iyo qaarka dhexaadka iyo kuwa hadda soo kubcaya dhamaantiinba bahalkan wuxuu rabaa dadaal joogto ah iyo dhiirigelin
ma ahan in kaliya aad muuqaal yar oo kooban soo gudbiso taasi waa uu ka xeel dheeryahay marka waxaan leeyahay halas garabsado dhammaantiinba waad mahadsantihiin barnaamijkan mid lamid aan ku kulmi doono waqtiga soo